cabdimaalig muuse coldoon magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe halkaasi oo santar ama xarun u ah maleeshiyaadka arxanka daran ee kooxda al-shabaab miyaa isu dhiibay amase tagay jilib oo ku biiray dagaalamayaasha khawaarijta ah. war la yaab leh ayaa soo baxay. coldoon oo 3 maalin lala'aa ayaa caawa soo hadlay isaga oo yidhi waxaan ka baxsay Somalilan oo waxa aan ku sugannahay dhul abni ah oo wax problema aysan ka jirin amnina aan ku dareemayo. haddaba halkee ayuu ku dambeeyay cabdimaalig muuse coldoon, maxaase ka jira inuu ku biiray kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab. haddaba muuqaalkan waxaan rabaa inaan kugula wadaago xoogaha ugu dambeeyay oo laga helayo cabdimaalig muuse coldoon oo la aaminsanaa maalmihii lasoo dhaafay inuu u tirisayo inuu qorsheynayo ama ku biirayo dagaalamayaasha khawaarijta ah. intaana muuqaalkan kula wadaagin fadlan shargare laagare saaxiibada la wadaag waa mahadsan tahay. cabdimaalig muuse coldoon ahaa saxafiyiin hore oo ka tirsan Somalilan haddana isu bedelay samafale ayaa la aaminsanaa in maray ahaataba uu tegi doono jilib sida raggii ka horeeyay abwaanageeye iyo abwaaniin kale ee reer Somalilan iyo sidoo kale aadan sunni ay isaga dhiibeen. dabcan ciddii xasuusata ayaa xasuusata cabdimaalig muuse coldoon waxa uu saaxiib dowla ahaa aadan sunni markii uu baxayana waxa uu ku jiray xabsiga. hadaladiisa marka la fiiriyo gaaleynta ciidanka dastuurka iyo arrimahaas oo dhan waxay ahaayeen kuwo lagu yaqaano khawaarijta. marar badan ayaana lagu eedeeyey in uu doonayo inuu ku biiro dagaalamayaasha kooxda khawaarijta ah ee al-shabaab. cabdimaalig muuse coldoon marka la fiiriyo raggii tegay saaxiibadiisa ahaa ee aadka isugu dhawaayeen kadib ayaamahan dambe waxa uu isu bedelay samafale waxaana la dareemayay in dhaqaalo badan oo aruurinaya iyadoo aan la ogeyn halka uu jiro. sidaan xogaha ka helnay Somalilan ayaa dhowr mar waxa ay cadaadis ku saartay inay ogaadaan dhaqaalaha soo gala si loo xisaabiyo halka ay ku baxaan iyaga oo ka cabsada dhaqaalahaasi in si toos ah loogu wareejiyo dagaalamayaasha kooxda khawaarijta ah. cabdimaalig muuse coldoon sida uu sheegay waxa uu yiri waxaan ka cararay gurigay kadib markii aan helay in ciidanka Somalilan ay ugu soo maqan yihiin haddana waxaan joogaa meel abni ah. waana hadaladii abwaanageeye kadib markii muddo asbuuc ah la waayay halka jaan iyo cirib uu dhigay lana wadaagay warbaahinta in halkaasi uu ka dhacay laakiin ugu dambeyn uu soo hadlay isaga uu sheegay in amni iyo nolol uu ku haysto dhul ay ka talinaya dagaalamayaasha kooxda khawaarijta. cabdimaalig muuse coldoon sida la sheegay isagu wuxuu leeyahay xal ayaan ka tagay gurigeyga laakiin waxaa la ogaaday in muddo 3 maalin ah ilaa caawa 4 ku tahay in gurigiisa uu ku maqnaa oo ciidanka Somalilan ay ka sugayeen in la baaro lacagaha soo gala iyo sidoo kale halka ay ku baxaan maadaama laga shakiyo oo la aaminsan yahay in lacago fara badan uu u aruurin jiray kooxda khawaarijta ah isagoo oo markaasi ku gambanaya qaab samafala ah. coldoon ilaa hadda ma jirto cid taqaano halka jaan iyo cirib uu dhigay iyo sidoo kale haatan halka uu ku sugan yahay laakiin 90% dadku waxay aaminsan yihiin halkii uu maray saaxiibkiis aadan sunni inuu maray wadadii uu qaadayna uu qaaday. sidoo kale abwaanageeye iyo abwaaniin kale oo qaraabo yihiin sidoo kalena saaxiibo dhow yihiin halka ay mareen ayaa la aaminsan yahay maadaama uu iyaga ka duwanaa oo ninkan warkiis uu cadaa lana aaminsanaa mar dhow inuu bixi doono halka iyaga aan la ogeyn oo ay qarsan jireen waxa ku jira gudahooda laakiin ninkan warkiisu wuxuu ahaa warcad markastana committee waxaa loogu qori jiray jilib goorma ayaad aadaysaa. hadda coldoon waxa uu leeyahay waxaan ka cararay Somalilan lamana yaqaano halka uu jaan iyo cirib u dhigay laakiin ciidanka Somalilan ayaa dhowr mar xaqiijiyay sida ay xoga sirdoon sheegayaan in ninkan laga shakiyay haddana uu cararay kadib markii ciidanku ay fahmeen in dhaqaalo fara badan isagoo bisha soon ku gambanaya oo ku dhow 100,000 oo u diray dagaalamayaasha kooxda khawaarijta ah isagoo oo markaasi si dadban ula shaqeynaya dhaqaalana uu aruurinayay. cabdimaalig hadda xogtiisa social media ayay haysataa oo qoraalkiisii ayaa siyaabo kala duwan loo kala qaadaya. shakiga badan waxyaabo keenaya waxay tahay warbaahinta Somalilan qaabka ay uga hadlayso iyagoo uu sheegay in coldoon uu ka baxay burco sidoo kalena uu aaday gobolada Sanaag ilaa iyo bari oo dadka qaar ay aaminsan yihiin in khawaarijtu halkaasi ay ka dhowdahay haddii daacish uusan ku biirin oo toos ugu biirayo dagaalamayaasha al-shabaab oo halkaasi ku sugan oo qaraabadiisu iyo ehelkiisu ay ku biireen. haddii aad xasuustaan janaalkan waxaan ku baahinay in dagaalamayaasha al-shabaab ay 300 oo reer waqooyi u soo xideen tababar
oo kamid ah abwaan nageeye ee abwaan gamadiid dagaalana ka galay shabeellada dhexe oo qorshahoodu yahay in Somaliland ay howlgallo ka fuliyaan. sida aan idin sheegaba abwaan nageeye iyo abwaan gamadiid ayaana hogaaminaya, Sheekh Aadan Sunni ayaana waxa uu yahay geed fadhi, walow la sheegay bilihii dambe inuu si aad ah u xanuunsanaa. waxayna ku dadaalayaan qorshihii halkaasi ciidanka loogu rari lahaa iyadoo istiraatiijiyadii weli aan la fariisin. sidoo kalena rag badan oo Somaliland u dhashan ay halkaasi xilal ka raadsan doonaan. qorshahaasi dad badan ayaa ugu dhaliilay uguna dhaleeceeyay iyagoo u qaatay inaan Isaaq iyo sidoo kale dadkaas reer Sheekh Isaaq aan ku durayno, laakiin maadaama coldoon la yahay haddii maalmaha soo socda la waayo lana ogaado inuu jilib iska dhiibo, waxay cadeynaysaa in qorshahaasi 100% uu yahay mid sax ah oo dadkaasi ay aaminsan yihiin in koonfurta Soomaaliya la gabagabeeyo, walow hadda qorshuhu yahay in xitaa Somaliland ay ku daraan oo aanan dhehaynin qaab qabiil ay isu awoolayaan, laakiin wadada aaminsan fikri ay ku sheegeen mid diimeed laakiin ah mid qalloocan oo lagu baabi'inayo shacabka Soomaaliyeed. haddaba coldoon jaan iyo cirib meel dhigo cid taqaano haba yaraatee malahan. dabcan waxaa la aaminsan yahay caawa in soo dhaweyn weyn uu kala kulmayo dagaalamayaasha khawaarijta ah, kuwaasi oo ku sugan buuraha gobolka Bari, kadibna ay rabaan inay soo gudbiyaan ama u wareejiyaan gobolada koonfureed iyagoo halkaasi doonka ka soo qaadi doono. waa haddii ay u suura gasho, laakiin dhowaan waa la weyi doonaa halka jaan iyo cirib uu dhigay. sida abwaan nageeye ayuuna bilo kadib waraysi bixi doonaa. haddii ka hor la helana xogaheena dambe iyo muuqaaladana dambe ayaan kugula wadaagina. waa mahadsantahay. war degdeg ah, abwaanka lagu magacaabo Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed ee ku sugan gobolada waqooyi ee dalka, aadna ugu caanbaxay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray sida tan: waxaan ka tagay Burco, xalay ayaan guura kaga baxay magaaladeydii Burco kadib markii aan ogaaday in la go'aamiyey in la xidho. hadda waxaan ku suganahay meel aan ku dareemayo ammaan. hadalkaas kooban ayuu Cabdimaalig Muuse Coldoon ku soo qoray bartiisa Facebook. ninkan waxaa lagu yaqaanay caawinta dadka tabaalaysan, inkastoo fikir xagjirnimo ah oo ku soo qori jiray bartiisa Facebook-kaasi oo inta badan dadka caqiidada wanaagsan iyo dadka nacaybka al-shabaab uu ku jiraba ama shabaab nacaybkiisa uu ku jiraba ay inta badan ninka negative u arki jireen markii baraha bulshada uu ku soo qoro qoraalada iyo sidoo kale waxyaabaha inta badan aysan dadka Soomaaliyeed jeclaysan. waxaa horey u jirtay in abwaaniin badan oo ka tagay gobolada waqooyi, magaalooyinka Burco, Boorama, Hargeysa iyo magaalooyin kaleba ay gaareen magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, halkaasi oo center ama xarun u ah maleeshiyaadka arxanka daran ee kooxda al-shabaab. haddaba sidee baad u aragtaa qoraalkan uu soo qoray Cabdimaalig Muuse Coldoon? Cabdimaalig qaatumo ma aadi karo, Somaliland kuma sii dhex sugnaa karo oo waa halka la raadinaya in la xiro. Muqdisho ama gobolada kale ee dalka inuu soo aadana iska daa. waa meel ma ayaa isleedahay meesha uu caawa soo qoray. hadda waxaan ku suganahay meel aan ku dareemayo ammaan. waxaa jirta hadal hoose ama nuxnux hoose oo jirto oo la isla dhex marayo oo ah in mar ay ahaataba Cabdimaalig oo gaari doono deegaanada ay ka arrimayaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab uuna qaadi doono raadka nageeye iyo amniwaanadii hore ee ka horreeyay. qaybta hoose muuqaalkan nagula wadaag aragtidaada, muuqaalka sii sheer garay, hana ilaawin inaad ku soo birto boggan gaarka ee Wariye Dhowr.